waxaan ognahay ilaa iyo markii howlgalka ciidamada ICE ay ka bilaabeen magaalooyinka mataanaha ee St Paul iyo Minneapolis oo horaantii bishii December ay bilaabeen haddana isniintii oo shantii bisha ahayd howlgalkii ugu ballaarnaa oo ciidamo ICE oo 2000 iyo kuwa wasaaradda amniga gudaha isugu jira howlgalla ay ka bilaabeen magaalooyinkaasi in ay mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa ayna dowladaha hoose ee Minneapolis iyo St Paul ba ay ka digayeen dhimasho iyo dhaawac halis ah inuu ka dhalan karo shalay oo ugu dambeysay taliyaha ciidamada booliska ee Minneapolis ayaa waxa uu dhahayay haddii aad howl qabanaysaan si sharcigu waafaqsan oo xirfadaysan u qabta. The greatest risk to me is that there would be unrest or that there would be a tragedy, that somebody could get seriously hurt or killed because of what's happening. Whatever you do, do your jobs professionally and lawfully. Laakiin hadda toogasho ayaa dhacday. Maanta sidee wax u dhaceen? magaalada Minneapolis gaar ahaan wadada la yiraahdo East 34 Street iyo halka Portland ay iska jiraan ayaa ciidamo ICE oo socdo gaarigan gaduudka oo aad arkaysaan oo qof dumar ah oo wato waliba waxa hadda la sheegayaa in ay kamid ahay dadka loo ogol yahay oo legal observerska oo dhaqdhaqaaqyada iyo waxyaabaha ay sameynayaan ciidamada ICE inay la socdaan kamid ahayd ay gaarigeeda ku horjartay ciidamadii ICE gaariga ay ka soo dageen markaas kadibna markay ka soo dageen oo xaggeeda ay u soo dhaqaaqeen sida muuqaalka aad ka arkaysaan gaarigeedii ayay dhaqaajisay askari ka tirsan ciidamada ICE ayaa 3 xabadood markaasi xaggeeda u riday waliba daaqada gaariga uu qofku ka waday gaarigii rasaastii qofkii waa ay ku dhacday sida la dareemayo gaari baakin yeelay ayuu qaybta dambe uga dhacay qiic ayaana la arkayay markaasi kadib dadkii goobta joogay inay duubaan ayay bilaabeen oo ay qayliyaan muuqaalka codka waan ka jaray ma doonayo in muuqaalkan lagu dhago YouTube ama baraha kale ee bulshada ay ku dhagaan marka qofkii isla goobtii ayuu ku geeriyooday qof dumar ah oo 37 jir ah waaye sida la sheegay waxaana jirtay markaas kadib in ciidamada ICE xitaa dhakhtar meesha ka agdhawaa ay u diideen inuu gargaar degdeg ah siiyo ambulance timid xitaa wadada maadaama ay xireen 10 ilaa 15 daqiiqo ayay ku qaadatay in goobta shilku ka dhacay ay soo gaarto markii dambe ciidamada ICE iyaga ayaa meydkii gaariga ka soo bixiyay oo ambulance ta saaray afayeenka wasaaradda amniga gudaha waxa ay sheegtay iyo waliba wasiirka amniga gudaha in qofkan uu isku dayay in gaarigiisa hub ahaan ciidamada ICE uu isticmaalo sidaas darteedna tababarkoodii la soo siiyay iyagoo gudanaya ama waajibkooda inay toogteen qofkaasi oo ay dileen marka waxay xaqiijiyeen inuu dhintay marka waxay leeyihiin gaarigiisa ayuu doonayay gawaarida ciidamada ICE ama iyagoo wadada taaganba inuu marsiyo oo hub ahaan ugu adeegsado iyaguna waa isdifaaceen oo waa ay dileen haddaba waxa shir jaraa'id qabtay markii arintaasi ay dhacday kadib maayarka magaalada Minneapolis ama duqa magaalada Jacob Frey iyo taliyaha booliska maayarka ama duqa magaalada Minneapolis waxa uu yiri waxa dhacay waxyaabihii muddo aan ka digaynay oo aan ka hadlaynay waxa uu sheegay in hadda baaritaan ay wadaan isla markaana ay ogaan doonaan arintan sida ay u dhacday laakiin haweeney 37 jir ah ayaa geeriyootay ayuu yiri waxana uu sheegay in ciidamadan aysan ICE hawsha ay wadaan aysan ahayn mid ay doonayaan in ay amniga wadanka ay ku sugaan laakiin waxa uu yiri bulshada ay qalqal gelinayaan qoysasna waa ay kala wadayaan haddana waxa ay bilaabeen ayuu yiri in ay dad dilaan oo naf ay jiraan isagoo arimahaasi ka hadlayay waxa uu yiri duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey to the bottom of this to get justice and to make sure that there is an investigation that is conducted in full but what we do know is that a 37-year-old woman is dead and that she was shot by ICE. We've dreaded this moment since the early stages of this ICE presence in Minneapolis. Not only is this a concern that we've had internally, we've been talking about it. They are not here to cause safety in this city. What they are doing is not to provide safety in America. What they are doing is causing chaos and distrust. They're ripping families apart. They're sowing chaos on our streets. And in this case, quite literally killing people. So they are already trying to spin this as an action of self-defense. Having seen the video of myself, I want to tell everybody directly, this was an agent recklessly using power that resulted in somebody dying, getting killed.
dhinaca kale howlgallada ka socda Minneapolis oo ciidamada ICE ay bilaabeen Isniintii in ka badan 2,000 oo ciidamada ICE iyo kuwa wasaaradda amniga gudaha ayaa howlgalkan wada shalay xitaa wasiirka amniga gudaha Christine Noem ayaa la socotay waa ay hubeysan yihiin gawaari gaashaamanna waa ay wataan waxa ninka ciidamada ICE madaxda sida ku meel gaarka u Todd Lyons waxa uu sheegay in howlgalkan muddo bil ah uu socon doono waxana uu yiri waa howlgalkii ugu ballaarnaa ebed oo ciidamada oo dhinaca immigrationka oo ciidamada ICE ay sameeyaan Minneapolis iyo St. Paul ayaana laga fulinaya. We have the largest immigration operation ever taking place right now. It's a great effort by ICE. muuqaalkan qaybta dambe sidaad ka arkaysaan waxaa ka muuqanaya meesha marka ay dadka qabtaan ay ciidamada ICE ay geeyaan shalay wasiirka amniga ayaa tagtay dadka fara badan ayaad arkaysa oo meesha fadhiyo iyo waliba iyadoo ciidamada salaamaysa ugana mahad celinaysa waxa ay sheegtay in howlgalkan xitaa 30 maalmood kadib haddii ay u baahdaan inay sii joogaan Minneapolis iyo St. Paul in ay sii joogi doonaan waxaa sidoo kale Isniintii ay sheegeen inay soo qabteen in ka badan 150 qof oo Minneapolis iyo St. Paul ay ka soo qabteen shalay lama oga inta ay soo qabteen howlgalkuna hadda wali waa uu socdaa dhinaca kale waxaan gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu sheegay in howlgal soo bilowday bishii Agosto ee 8aad ilaa iyo hadda bishan January ee sanadkan cusub soo gaaray muddo 5 bilood socday oo loogu magac daray Operation Tidal Wave inay ku soo qabteen in ka badan 10,000 oo dad sharci darro ah waxaana laga soo qabtay degmooyin kala duwan oo gobolkaasi in Florida ah dadkan sharci darrada ah oo gobolka Florida laga soo qabqabtay howlgalku waxa uu bilowday Agosto bishii 8aad kowdeedii sanadkii 2025 ilaa iyo waxa uu soo gaaray 6dii bishan January ee sanadkan 2026 waxaana lagu soo qabtay 10,400 oo dad sharci darro ah sida ay sheegeen in dadkaasi 3,435 kamid ah Guatemala ay ka yimaadeen 3,331 Mexico 1,353 Honduras 312 El Salvador Venezuela sidoo kale 312 halka 1,249 wadamo kale oo kala duwan ay ka yimaadeen wadamadaasi lama sheegin marka waxa uu sheegay in laga soo kala qabtay in ilaa iyo 13 degmo oo kala duwan oo gobolkaasi kamid ah waxa kamid ah Alachua Baker Bradford Brevard Clay Hernando Hillsborough Indiana River Orange Pinellas St. John's Sumter iyo sidoo kalena waxa kamid ah Flushia meelaha laga soo kala qabtay haddaba waa kan gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis oo shir jaraa'id qabtay kana hadlayay howlgalkan waxa uu yiri ma jiro gobol kamid ah gobolada Mareykanka oo dadka aan soo qabanay in la eg soo qabtay waxana uu ku faanay dadkaasi sharci darrada oo gobolkaasi ay ka soo qabteen isla markaana ay ku wareejiyeen wasaaradda amniga gudaha si ay u masaafuriyaan. So today I can announce that Operation Tidal Wave is now hit over 10,000 arrests of illegal aliens who have been turned over to the Department of Homeland Security. Of those, 63% had criminal arrests or convictions, including violent offenders and sex offenders, although you don't have to have committed a crime to be subject to immigration enforcement. If you've come illegally, that is the offense. And so, of course, people can enforce the law. But it does show that some of these folks have been involved in a lot of really, really bad stuff. So there's no other state that has been able to do anything approaching what the state of Florida has been able to do. dhinaca kale musuqmaasuqii gobolka Minnesota aqalka Congress-ka ee Mareykanka gaar ahaan aqalka wakiilada xubnaha guddiga u xisaabsan la xisaabtanka dawladda ayaa maanta waxa ay qabteen dhageys la xiriira musuqmaasuqa ka jira gobolka Minnesota saddex xubnood oo Republican oo ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka gobolka Minnesota oo kala ah Kristen Robbins Walter Hodgson iyo sidoo kalena Marion Rarick ayayna su'aalo weydiiyeen waxa ay ka tirsan yihiin saddexdan xubnood guddiga baarlamaanka gobolka Minnesota u qaabilsan ka hortagga musuqmaasuqa la xisaabtanka hay'adaha gobolka Minnesota waxaana la sameeyay bishii January ee sanadkii dhamaaday 2025 marka su'aalo ay weydiinayeen xubnaha Congress-ka gaar ahaan guddiga la xisaabtanka u qaabilsan waxa su'aalaha ugu horeeyay ku bilaabay Tom Emmer oo gobolka Minnesota laga soo doorto hoggaanka xisbiga Republicanka ee aqalka wakiiladana kamid ah waxa uu sheegay in ay jireen ayuu yiri ilaa iyo 1,000 qof oo dad marqaatiyaal ah oo musuqmaasuqan ka hadlay oo gobolka u soo sheegay isla markaana ay iska dhaga tireen
gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz isla markaana sidoo kale xitaa loogu hanjabay inay shaqadooda waynayaan ayay tiri xubno dimuqraadi ayaa ku jira xitaa xubnaha gobolka u shaqeeya oo musuqmaasuqan doonayay inay shaaca ka qaadaan laakiin loogu hanjabay in shaqada laga ceerinayo waliba sabab loo yeelayo caafimaadna aan la siinaynin waxaa la weydiiyey gudoomiyaha gobolka Tim Walz musuqmaasuqan inuu dhacayo ma ogaa ayay ku jawaabeen marka bal ila daawada markii Tom Emmer su'aalahan uu weydiinayay xildhibaanadan la yiraahdo Marion Rarick oo iyadoo kamid ah xubnaha saddexda ee maanta guddiga xisaabtanka ee Kongareeska Mareykanku ay su'aalaha weydiinayeen